Kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta iyo qaybtii 12aad ee filimka Dhaxal. Qaybta ka dambeysa oo ku sii xiisay xamaasad badan yahay tanaba kuwii horeba ka waalanba. Galad oo qorshihiisa la ogaaday odaygana uu ballan ku qaaday inuu kow ka siin doono wuxuu u diray niman si kow uga siiyaan meydkiisana qariyaan. Lookaan iyo saaxiibkiis midka u afduubnaa oo ka fakaday. Hani oo shirqool u dhigtay Galad si loo dilo. Yaana muuqaalkeena kaga hor dhicin saaxiibayaal intaana filimka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka noo leegaraysan sidoo kale haddii taa markii ugu horreysana soo booqatay inaad subscribe soo dhahdo aana gambalaalka furato si aad u noqoto daawadaha koowaad ee daawada muuqaalada aan gadaal ka soo dhigi doono insha Allah. saaxiibayaal aan filimka guda galno. Filimku waxa uu ka bilaabanayaa oday Rooble oo imaanaya oday Afrax si uu ula hadlo wuxuuna imaanayaa meesha uu ku xirnaa. waxaanu halkan ka ogaanaynaa oday Afrax iyo oday Rooble inay walaal yihiin. Afraxna uu yahay walaalkiis ka weyn oo asagu soo koriyay. waxaanu ogaanaynaa inuu u soo xiray arrimo dhaxal ku saabsan darteed. Afrax waxa uu leeyahay masoo hanuuntay waxaan ku cafin doonaa marka aad qiratid dembigaaga. waxa uu sheegayaa inuu wali sidiis u madax adag yahay waxaana weydiinayaa inuu yaqaano qofka ku xirnaa qolka ku dhagan. isna waxba uma sheegaya waxaanu ku leeyahay waxaan ogahay inaad tahay qof si gardarra leh ku haysateen. intaas wax dhaafsan markuu u sheegay waa iskaga soo tagayaa. halka kale Galad waxa uu taagayaa banaanka waxaanu ku mashquulsan yahay fiirinta muuqaalada uu ka duubay. waxa uu hubinayaa inuu yahay ninka garaaci jiray marka uu xirnaa. markii uu cadaatana waxa soo baxaya gaarigii. isna waxa uu ka duubanayaa muuqaal. markuu gaarigu baxay waa uu ka daba baxayaa waxaanu istaagayaa meel kale waxaanu wacayaa saaxiibkiis waana saq dhexe. saaxiibkiis markuu imaado waxa uu weydiinayaa waxa saacadan soo jeediyay iyo waxa uu u soo wacay. waxa uu saaxiibkiis u sheegayaa inuu afduubnaa abtigiis. saaxiibkiis waa uu yaabayaa waxaanu leeyahay ma iga hubtaa saaxiib waxaan. waxa uu u sheegayaa inuu ka hubo arrinkaas sidoo kale meesha uusa keligiisna ku xirnayn uu kula xirnaa abtigiis isaga walaalkiis. waxaanu u xiray arrimo ku saabsan dhaxal waxaanu ku leeyahay arrinkan qof kale uma sheegin adiga ka ahayn. saaxiibkiisii asaga waxay go'aansanayaan inay ciidanka aadaan si loogu soo xiro. markay saldhigga hortiisa imaadaan waardiyaha waxa uu weydiinayaa dadka yihiin. waxay u sheegayaan inay yihiin shacab ayna rabaan in loo soo xiro qof. askarigu waxa uu weydiinayaa inay wataan warqadii caddeynta laakiin waxay u sheegayaan inaysan wadin. asna waxa uu ku leeyahay caddeyn la'aan qof layskama soo xiree warqadda caddeynta doonta meeshana iskaga taga. iyagana waa iskaga soo tagayaan. wax yar kadib Galad markuu guriga ku soo laabto asagoo gaagaatamaya albaabkana tartiib u furayo. duqu waa uu soo jeedayba meesha uu ku sugaya abti waxba gaagaataminaa la waa soo jeedaa ee saacadan inta ku maqnayd inta ka timaada. waxa uu aabiis u sheegayaa wardi xaaskiisa oo xanuunsanayd inuu isbitaalka u qaadeen. waxa uu weydiinayaa soo wardi ma joogo maxaa adi saacadan u baxday. waxa uu leeyahay aabba gaariga ayaan ka haystaa. waxa uu leeyahay saas darteedaan la soo wacay. duqu waxa uu dhahayaa gaarigan maxaa u haysataa maxaanu ku fashaa maxaad ku samaysaa. waxa uu u sheegayaa inuu caadi iska haysta leh. duquna wuxuu dhahayaa sabab adigana cidna wax u sheegin aad banaanka ugu baxday saacadan. waa uu ka raaligelinayaa aabiis waxaanu dhahayaa hadda kadib insha Allah hadaa baxaayo waan kula socodsiin doonaa. duqu waxa uu leeyahay ma sida cunug yar ayaan hadda ul ku qaataa. waxa uu sheegayaa inuu magaaladan ay halis tahay uuna joojiyo saacadaha uu baxaayo. duqu waa iskaga tagayaa. Galadna waxa uu soo xiranayaa gaariga. subax xigta waxaanu arkaynaa Galad oo jooga saldhigga ciidamada waxaa soo raacaya askar waxaanu u soo wada meesha uu ku xirnaa. inta ay wadada ku soo jiraan dhaqso muuqaalka like saar. waa saartaa filaa waxay soo gaarayaan guriga uu ku xirnaa. markay guriga gudaha u soo galaan familka degan waxay weydiinayaan inuu qof kale kula nool yahay laakiin waxay u sheegayaan in ayaga bes ku nool yihiin. askartu waxay baarayaan guriga dhan nasiib xumo waxba way ka weynayaan. waxay go'aansanayaan inay iskaga tagaan way ka raaligelinayaan inta ay qaseen. marka ay saas u dhaqaaqaan ninka waxa uu wacayaa Qays. Galad waxaanu arkaynaa inuu weli shakisan yahay gurigan uu dib u fiirinayo. halka kale oday Afrax waxa lagu soo tuurayaa qol kale waxaanu is arkayaa markiis ugu horeysay muraayad sanado badan kadib. waxa uu galayaa xasuus waxa uu soo xasuusanayaa waayo isagoo u kala kacsan tahay oo ka yimid dalka dabadiisa. waxa uu isbarbardhigayaa xilligaas iyo xilliga uu hadda joogo laakiin waa uu ka murugoonayaa waxa uu arkayo. dhanka kale Galad waxa uu dabagol ku hayay abtigiis. gaarigu waxa uu taagnaa kaalin shidaal asna waxa uu ka daawanayo kor laakiin hal mar ayay wax isbedelayaan. waxa uu ogaanayaa inay wax khaldan yihiin asna meesha waa iskaga cararaya. halka kale oday Rooble Qays waxa uu keenayaa GPS uu ka soo fujiyay gaarigiisa. waxa uu sheegayaa inuu Galad ugu dhajiyay uuna la socday meel walba uu aadayo. waxa uu ku leeyahay waa la ogaaday meeshani sirteed. waxaanu ku dhahayaa sidee. waxa uu sheegayaa inuu xalay la socday marka uu imaanayo inuu dabagal ku hayay. odaygu waxa uu leeyahay inay sii daamayaan inaa markaa qabtay kow ka sii ayay ahayd. waxa uu Qays u sheegayaa inay qabtaan ay dilaan
dilaan meydkiisana ay qariyaan. Qays wuxuu weydiinayaa arrimihii daahir meeshay marayaan, isna wuxuu u sheegayaa inuu ku wareejiyo abukaate hadirtaan. wuxuuna ku leeyahay asaga ayaa soo dhammayn doona, asaga ayaa u dhafnay. Qaysna waa iskaga tegayaa. halka kale Lowkaan iyo saaxiibkiis waxay soo wadayaan ninka Lowkaan aabihiis dilay si uu u tuso ninkii la dilay. waxayna ku leeyihiin na tus ninka, isna wuxuu u sheegayaa inuu cabaar kadib meeshan imaan doono uuna jaad soo doonanayo. ayagana waxay u sheegayaan hadduu daqiiqado gudahood ku imaan waayo inay asaga dilayaan. waa uu ka fakanayaa, waa uuna cararayaa, waxay bursadaanba waxay ku qabanayaan luuq. Lowkaan waxa uu leeyahay wareeri baaskoolada sii, ninkan halkan ayaa ku dilaya. laakiin saaxiibkiis waxa uu sheegayaa inaysan meeshan macquul ahayn, way soo wadayaan. halka kale oday Roble markuu gurigiisa yimaado waxa uu xaaskiisa tusayaa waxa gaarigiisa loogu dhajiyay. waxa uu ku leeyahay waxaan ma taqaanaa, waxay dhahaysaa ma aqaan ee waa maxay. waxa uu sheegayaa inay GPS tahay gaarigiisana loogu dhajiyay. waxa uu ku leeyahay ma taqaanaa waxa qofkan sidaas sameeyay, waxayna dhahaysaa ma aqaan ee yaa waay. waxa uu sheegayaa inay tahay maska ay soo dhaweysanaysay. waxa uu ku leeyahay mas ayaad soo dhaweysanaysaa, waxaan rabtaa inaad gabadhaada ku darto. waxa uu tusayaa muuqaalkii CC kaamirada duubtay marka uu galad ku dhajinayo gaariga. waxa uu ku leeyahay soo ma aragtid maskaa soo dhaweysanaysa waxa uu sameynayo, mana jiri doonto qof xariirin doona, una sheeg ciyaalkaad dhashay. nimaan wax ogeen ilaahay ma cadaaba. halka kale galad waxa uu iskaga mashquulsanaa kombiyuutarkiisa, maba ogamiyaa in filinkiisa dhan laga daba tegay. waxa uu wacayaa gabar ka tirsan shaqaalaha bangiga. waxa uu ka qaadanayaa lambarka Yonis. waxa uu wacayaa Yonis waxaana u sheegayaa inuu rabo inuu la kulmo. halka kale wareeri oo wuxuu shaafteeyala waxa uu soo agmaraya xariifko, markuu baaskoolada ku qabtana lama hadlaayo. waxa uu leeyahay waxaan uu cabsan yahay naga dhaafiyo nagu dhiman. markuu Lowkaan soo baxo waxa uu leeyahay ma adigoo baaskoolada haystaa lagu dhaafay. waxa uu leeyahay warbaaxashaan aanay idhiib, isna waxa uu dhahayaa ma ku dhufan lahayd. waxa uu ku leeyahay telefoon xuna qof uma dilaayo, qofkii isiiyana waa ka qaadanaya, qofkii ii diidana waa iska dhaafaa. Lowkaan waxa uu leeyahay ma adigoo baaskoolada haystaa lagu dhaafay, isna waxa uu leeyahay waa uu cabsanaya naga dhaaf. subaxdii xigtay oday Roble waxa uu gabadhiisa ku leeyahay galad gormo ayaa kugu dambeysay. iyadana waxay u sheegaysaa inay maalmo ka hor ay isla hadlayeen. waxa uu u sheegayaa waxa uu sameeyay. iyadana waxay ku leedahay hooyo ayaa ii sheegtay, laakiin muxuu uu saas u sameeyay. waxa uu ku leeyahay adaa walba ka daba ordi jirtay, waana aragtaa waxa uu nagu sameeyay. waxay u sheegaysaa inay keed kaliya qaraabo xiriirin. isna waxa uu sheegayaa inay booskeeda qaraabinimada ay ka soo baxday, haddana aysan wax dambi aysan ku lahayn. halka kale Hani waxay fiirsanaysaa muuqaalka uu aabeed u soo diray. waa ay yaaban tahay sababta uu sidaan u sameynayo. halka kale galad oo wax u ogeen waxa uu soo wacayaa Manaal. iyadana waxay u sheegaysaa inuu khiyaano loo yahay uuna ammaan siiyo. waxay u sheegaysaa waxa uu sameeyay inay arkeen, haddana uu ammaan siiyo. waa ay ku jaraysaa dhowr mar markuu ku soo celceliyo, kadib waa ay ka qabanaysaa. waxaana uu sheegayaa inuu aabeed u afduubnaa. waxay ku leedahay cadeen ma haysaa, isna waa uu ku jarayaa, waa uuna baxayaa. Hani waxay galad ku balaminaysaa meel kafee lagu cabo si ay u wada hadlaan. markuu meesha imaado wuxuu arkayaa inay nimanku sugayaan. waxa inuu shirqool ku soo dhacay. hadda laba mid waa inuu isdhiibo ama inuu meesha ka cararo. waxa uu sameynayaa tartiib, waxa uu iska dhigayaa qof masquul aadaya. waxa uu galka telefoonka uga tegayaa miiska si aan looga shakin. isna waxa uu ka baxayaa albaabka dambe. waxa uu meesha ka wadanayaa gaarigiisa, waa uuna ka cararo. iyaduna waxay kasoo dababaxayaan, waxayna leeyihiin sida ku dhacday ninkan uu ku fakaday. wax yar kadib waxay imaanaysaa Hani. iridda markay maraysan waxa uu soo dhacay safariin uu leeyahay waan ka badbaaday shirqoolka ii dhigtay ee istaji. waxaan ogaanaynaa inaysan ayadan waxba ka warqabin, waana iska laabanaysaa. saaxiibayaal muuqaalka maanta halkaas ayuu ku egyahay. waa ku mahadsan tahay daawashadaada. saaxiibayaal iga raali noqda, muuqaalkan xal dheer ayaa la rabay inaan soo geliyo, ka idinkama caajisina khad la-aan ayaa jirtay, taasna waa idinka raaligelinayaa saaxiibayaal. intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ku kulmeyno sidaas iyo intaana ina macsalaameen saaxiibayaal. su-aal yar ayaan wataa, qaybaha kale ee filimka sidaan camal ma usoo sameynaa? hadday jawaabtaada haa tahay dhanka hoose ee faalada noogu reeb. aad iyo aad aa u mahadsantahay. intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ka kulmeyno sidaas iyo nabaday.